waa aroornimo hore waxa uu isu diyaarinayaa tigitaanka dugsigu wax ka barto ku yaala magaalada Burco. Maxamed Ismaaciil Saleebaan waa wiil dhalinyaro ah kadib xanuun haleelay isagoo oo yar ayaa waxa go'ay baabacooyinka gacmaha iyo adimada naafanimadu se kama weecin rabitaankiisa nolosha. waxaan ahay wiil naafa ah oo afarta waxyood maxay ahayd go'an yihiin. markii aan sarkay inaan naafa ahay ismaan oran maxay ahayd naafa ayatay qofka hadduu qalbiga ka naafoobana maxay ahayd waa naafo, laakiin iskuma arkaano inaan naafa ahay. imka waxaan dhigtaa dugsiga sare ee Sheekh Bashiir Secondary School. waxaan ku jiraa fasalkii labaad ee dugsiga. igimay hor istaagan maxay ahayd naafanimadaydaas inaan maxay ahayd waxbarashadayda ama inaan wax noqdo. anigoo hal sano jira ayaa xanuun ku dhacay afarta waxyood, kadibna way iyaga go'ay oo dhakhtarka Berbera ay ku go'een. marka waxaan ahaa hal sano ayaan ku qiyaasay sidaan waalidku igu sheegay. maalin walba waxa uu ka yimaadaa xaafadan oo lagu magacaabo Cali Xuseen, isla markaasina uu jirto dugsiga uu dhigto masaafo dhan 5 kiiloomitir. xaafadda aan joogay iyo maxay ahayd inta magaalada iyo iskuulka waxa isku jira 5 kiiloomitir 5 kiiloomitir. mar waxa dhacday maxay ahayd inaan sii lugeeyo aan soo lugeeyo waxaan u sameynaysaa gaar lahaa hamiga iyo higsiga iyo himiladayda. dadkii horta caqabad baa kaaga imanaysaa, xagga waxbarashada caqabad baa kaaga imanaysaa. dhinac kastoo aad ka eegto markaad qofkii naafa yahay caqabad ayaa kaaga imanaysaa. bulshadii maxay ahayd way ku aflagaadeynayaan, qaar way ku soo dhaweynayaan, qaar maxay ahayd waa kolba si way kula dhaqmayaan iyagu. waxbarashadii maxay ahayd kale haddii ka fogtay ma gaari kartid adigu haddii aad wax ku gaarnaadahay. sidaan ahay aanu markaan sarkay ismaan oran adu sidan ayaa tahay maxay ahayd waxaan isdiri dad ba ka sii liita. intii ka sii liidata waxaad tari karto waa inaad adigu u qabataa.